بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. kitaabkii boqolka xadiid ayaan weli markaa ku jirnaa. waxaa noogu soo dambeeyey xadiidkii 21aad kaasoo tilmaamayey qof allaala qofka qof khayr tusiya inuu leeyahay intii khayrkaa ku waafaqday oo camal qabatay ajirkooda oo kale. xadiidkii 22aad addiinu annasiixa, diintu inay nasiixo tahay ayaa looga hadlayaa can tamiim bin aws الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري نبيك الدين النصيحة، دينتو والنصيحة، دينت النصيحة ويقولنا وحان كنري لمن يأتها يا رسول الله رسولك إلهي نبيك إلهي دينتو يي نصيحة أتها قال لله إلهي بي أتها ولكتابه كتاب كيسة ولرسوله رسول كيسة ولأئمة المسلمين مسلمين تهجامي الكودة أئمة ذي هجامي كمضحظ مسلمين تي وعامتهم عمذو ذبا ددوينها قد أهنتو ذا رواه مسلم بحديث كوري نصيحة وحالي رهذا شيء قفك سمعين أينا أي أنفعيسو قفك الله سمعين أينا أي أنفعيسو matalan haddii maradu ay kaa jeexanto maradaadii tolato waxaa la yidhaahdaa hebel maradiisii wuu naseexeeyey oo adigiina way ku anfacaysaayo maradii kaa sii jeexmi lahayd dadkana ku dhihi lahayn mara jeexne ayaad ka badbaadaysaa, maradiina markaa way anfacaysaa. idan diintu waa nasiixo. wa ana lakum naasixun amiin, anigu waxaan idiin ahay naasix amiin ah, nebiyada ka mid ah ayaa yidhi. وأنصح لكم وأن إذن نصيحينيا وأعلم من الله ما لم تكونوا وأعلم من الله إلى حق سبحانه كأوغهي وعد المركا كأوغين. إبليس لفتقيسة آدم إيحاو معوكو يري وقاسمهما إني لكما هي لمن الناصحين وأدارتي وروان إذن نصيحينيا محو أغو نصيحينيا وحي إلهي أوديذي uu yidhi ha samaynina, inay sameeyaan buu amrayaa. taasuu nasiixo u arkay. waan idiin muxaadaraynayaa buu yidhi ibliis. saa darteed diinta waa nasiixo. yay u tahay baa la dhahay nebiga, lilaahi, ilaahay bay u tahay. waa inaad qirtaa ilaahay inuu keligii yahay, inuu waxdaaniyada leeyahay, naafic iyo daar inuu asaga yahay subxaana wa tacaala. sidaa darteed ayaa mar allaala markaad arrintaa qirtana ilaahay bay u noqoto. rabbi wuxuu rabay in la caabudo keligii, ti waad samaysay. adigana way ku anfacdo jannad markaa ku helaysaa. walikitaabihi, kitaabkiisa ayay markaa u tahayoo kitaabka in la rumeeyo, lagu dhaqmo, lagu xukuntamo. inta haddaad samayso waad u naseexaysay, adigiina way ku anfacaysaa. walirasuulihi, rasuulkuna waa sidaa. a'immat almuslimiin, muslimiinta hogaamiyaalkooda in la ateeco, in amarkooda la fuliyo, in macaasi ilaahay aan lagu ateecin, iyaguna way anfici. caamadana saasoo kale almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo. xadiidkii 23aad can anas ibni maalikin radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga, laa yu'minu ma rumaynin, macnaha iimaan dhammaystiran oo kaamil ahoo taama lagama helin axadukum midkiin, xataa intii yuxibba uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibbu linafsihi wuxuu nafsadiisa la jecel yahay. ilaa waxaad nafsadaada la jeceshahay aad walaalkaa kala jeclaato, iimaan ma lihid. qofka walaalkaa ee mu'minka ah waxaad adiga naftaada la jeceshahayd oo aad ula tamaninayso ula tamani oo markaa sameey. caafimaad baad u baahan tahay oo waad jeceshahay, walaalkaa la jeclow. cilmi baad u baahan tahay, xoolo, mataqaanaa xaas, owlaad, waxyaabo fara badan. waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow.
ilaad kala jeclaatana wax iimaan male ayaa qofka markaa la leeyahay, ama iimaan dhammaystiranoo kaamil ah markaa ma laha. haddii ka waran aad khamri cabid jeceshahay, haddii ka waran deriska in la gooyo, zino iyo xumaan aad jeceshahay, ma ila jeclaanaysaa? jawaabtu waa maya. waayo riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen ilaa uu kala jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay oo min khayr markaa ah. khayrka iyo wanaagga markaa laga hadlaya oo la tilmaamaa maahane wixii kale shuruur iyo dhibaatooyin iyo macaasi iyo lagu cadaab mutaysanayo loolama jeedo. xadiidkii 24aad, almu'minuun waa jasad waaxid ah. cinwaankaasaa looga hadlayaa waa xadiidkii 24aad can الnucmaan bin bashiirin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, mathalu lmu'miniina, mu'miniinta mathalkooda fii tawaadihim isjacaylkooda, wa taraaxumihim isku naxariisashadoodii, wa tacaatufihim isku turidooda, mathalu ljasadi waa sidii hal jasad oo kale buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. say isugu naxariisanayaan, isugu turayaan, isugu jecel yihiin, hal jir baad moodaa oo idashtakaa hadduu sheegto ama uu xanuunsado minhu jirka xaggiisa cudwun xubin ay ka xanuunsato, tadaacaa ay isugu yeerato lahu asaga saa'iruljasadi jirka intiisa kale, bisahari dhafarka iyo walxumaa qandhada, muttafaqun calayhi. xanuunka iyo dhafarka way wada wadaagayaan. tusaale, caaba haddii fartan wax kaaga dhaco oo aad ka xanuunsato, la dhihi maayo faray macsalaama, anagu waa iska sii seexanaynaaye dhibkaaga dheef allah kaaga dhigo. indhihii way soo jeedaan, dhegihii way soo jeedaan, maqalkii wuu soo jeedaa, afkii wuu soo jeedaa, kulli way isla soo jeedayaan. idan hal qof oo muslim ah adduunka darafkiisa meeshuu ka taagan yahay, haddii dhib ku dhaco, muslimiinta oo kala dhan waa inay ka danqadaan oo ay ka xumaadaan oo ay la soo jeedaan, ay dhafarkii xanuunka la qayb qaataan oo ay kala qayb qaataan baa loola jeedaa takhyiir almunkar, munkarkoo la dooriyo. xadiidkii 25aad waaye can abi saciid alqudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi, samictu waxaan maqlay rasuula allaahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya ama odhanaya, man ra'aa qofkii arka oo minkum adinka idinka mid ah munkaran, munkar qofkii arkaa, falyugayirhu ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo oo ha ku dooriyo, fain lam yastatic hadduusan karin, hadduu kari waayo fabilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo, fain lam yastatic hadduu carabka xataa kari waayo fabiqalbihi qalbiga ha ka dooriyo oo munkarka ha uga hortago. wadaalika kaa oo ah in qalbiga lagu dooriyo munkarka, adcafu liimaani waa iimaanka midka ugu daciifsane. waayo qalbiga wixii ka gadaala waraa'a ma jiro xabba qardal ah oo iimaan ah. inta haddii lagaa waayo qalbigaaga wax yar oo iimaana kuma jiro. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo. xadiidku wuxuu tilmaamayaa heerar inay kala leedahay marka la doorinayo munkarka. haddaad kari karto waa inaad gacanta ku doorisaa. rasuulku nin buu arkay faraati dahaba ugu jira, intuu ka sibay buu ka tuuray sala allahu calayh wasalam, gacantuu ku dooriyey. haddii dhib inuu kaa yimaado aad ka baqayso oo aad kari weyso, waa inaad carabka kala hadashaa oo aad dhahdaa, walaalow waxaan kuuma habboonee dhaaf, diinta alla ma qabtee dhaaf, waxaan ilaahay waa diidee ka tag. waa inaad gacanta ku doorisaa. aan dhehee afka haddaad kari weyso waa inaad qalbiga ka nacdaa. aroos baa lagaa wacay, arooskii baad tagto, muusig iyo hobale baa yimid, markaa kadib baa meeshii la ciyaaraya. haddaad ka suurin karto ood ka joojin karta gacanta uga jooji. haddaad uga joojin weyso afka kala hadal. haddii afka aad kari weysana qalbiga kanac. qalbiga kanac macnaheedu ma ah intaad iska fadhiistood kursi qaadatood gees ka tagto, haddana muusigadii markay ku soo gaarto aad madaxa saa u ruxdo, aad saa ka yeesha madaxii. taa markaa ma aha markaa la leeyahay, laakiin waxaa laga wadaa qalbiga kanac, meesha uga tag. xumaantii waxyaabaha soconaya ee meesha ka jira waa inaad ka tagtaa meesha. waa inaad meesha markaa uga tagtaa calaamaad almunaafiq, calaamaadka munaafiqa lagu yaqaano.
qofka munaafiqa calaamaadkiisa waa xadiidkii 26 can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi aayatulmunaafiqi qofka munaafiqa ah aayaddiisu calaamaadka lagu yaqaano 3 idaa xadatha markuu warramayuu kuu sheekaynaya kadaba wuu been sheegaa wa idaa wacada haddii lala ballamana akhlafa wuu guub yeelaayo wuu ka baxa ballantii wuu buriyaa wa ida tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaanayaa muttafaqun calayhi khaa'innimaa lagu yaqaanaa qofka munaafiqa 3 calaamo buu leeyahay riwaayadaha qaarkood 4 bay leeyihiin xataa hadduu soomo ee uu salaado ee uu sheegto inuu muslim yahay waa munaafiq khaalis ah oo baraxla ilaa uu ka tegaayo qayb ka mida haddii lagaa helo qayb nifaaqnimada ka mid aha kugu jirta ilaa aad ka tegayso saa darteed calaamaadka iska ilaaliya aad baa loo badan yahay sheekada maanta aan ku sheekaynayna waa been oo waa qiila waqaala ballana aan fulina goormee noogu dambaysay qof kastana khaa'in buu maanta noqday diintii baa la khiyaanay bani aadamkii baa la khiyaanay ilaahay baa loo moodaa in la khiyaanayo saa darteed bay ummaddii oo dhan waxay u bateen nifaaqnimo iyo munaafiqnimo aad aan isaga ilaalino hal qofood oo maanta $100 aad ku aamini kartaa adduunka ma joogo haddii la helo qalla maa yuujad saa darteed haddaad maanta 6 saac u dhiibata $100 oad ugu soo noqoto casirkaa dhahda keen wuxuu kule igu soo laabo maxay tahay waa dhibaato aad iyo aad markaa u weyn meesha inoo joogto wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam